6 dhibaato oo laga dhaxlo siigada iyo sababta ay dumarka uga cararaan ragga cadeystay dhaqankan. maqaalkan waa mid ka hadlaya caafimaadka wuxuuna quseeyaa cid walba oo ku howlan waxa uu diiradda saarayo oo ah siigada ama gacan ku raaxaysiga. ka hor inta aanan abbaarin dulucda mawduucan waxaa muhiim ah in laga jawaabo su'aasha ah waa maxay siigo ama siigaysi. siigaysashadu masturbation waa habka uu qofka gacantiisii ugu raaxaysto isagoo la ciyaaraya ama ku falaadaya xubintiisii taranka. caafimaad ahaan ma ahan wax wanaagsan siigadu sida ay mar walba sheegaan dhaqaatiirta. sidoo kale diinta islaamka ma ogola waxayna reebtay inuu qofka gacantiisii isugu raaxeeyo isaga oo la falgalaya xubintiisii taranka malab yarowga waana dembi weyn siday culimmadu sheegtay. waa hubaal in dad u badan dhalinyaro rag ah ay dabeecad ka dhigteen siigada iyaga oo arrintan u arka xal fudud oo ay kaga kaaftoomayaan inay la falgalaan qof kale. sidoo kale waa xaqiiqo in qofka uu u riyaaqayo gacan ku raaxaysiga, balse shabakadda arrimaha qoyska ee mandeq.net waxay idinku guubaabinaysaa inaad ka fikirtaan mustaqbalkiina dambe oo aadan gacantiina ku kasban cudurro hadda idinka fog. maxaa dhibaato ah oo laga dhaxlaa siigada? su'aal kama taagna in gacan ku raaxaysigu uu qofka ku reebo dhibaatooyin soo degdega ama kuwa soo raaga oo xilli dambe soo muuqda. waxaana ka mida dhibaatooyinka laga dhaxla kow biyabaxa degdega ah. waxaa dhacda in qofka xirfadda ka dhigtay siigadu uu si fudud u biyabaxo xilliga galmada, waana dhibaato ay haddaba ka cabanayaan dad badan. inaad si degdega u biyabaxdo adigoo nin ah waxa ay kugu diraysaa xaaskaaga, waayo awood uma yeelanaysid inaad sariirta ku qanciso, waxayna taasi keeni kartaa furiin. xanuun badan. 2 siigada badan waxay sababtaa dhibaatooyin caafimaad, gaar ahaan waxa ay keentaa dhabar xanuun, waxaana dhici karta inay jilcaan murqaha kaalinta ka qaata shaqada sariirta, taas oo sababi karta inaad weyso hamigaaga raganimo iyo dareenka dabiiciga ah. 3 hilmaan iyo niyad-jab. qofka wakhtiga ku raaga siigaysiga waxaa la soo gudboonaada xusuus yari iyo daciifnimo dhanka waxbarashada ah, waayo ma awoodo inuu casharada xifdiyo, waxaana intaas u sii dheer isla hadal iyo walwalka. 4 xanuun ku yimaada qowraha. waxaa dhacda in gacan ku raaxaysiga badan uu xanuun darro u keeno xiniinyaha iyo in qofka biyabaxo isagoo aan dareemin kacsi amaba aysan kicin oo kor u istaagan xubintiisii taranka. 5 daal badan. qofka saaxiibka la noqda siigada waxa uu dhib ku qabaa inuu xitaa yaro ordo, kubad ciyaaro, socdo amaba uu koro meelaha taagga sida buuraha. saaxiibadiisii ayuuna caan ka dhex noqdaa, waxaana loo yaqaanaa mudane neef tuuraaye. qodobka 6 ee ugu dambeeya aragga oo daciifa. qofka oo da'yar ah ayaa ka cawda xanuun indhaha ah, waxaana dhibaato ku timaada awoodda aragga qofka. waxaa intaas u sii dheer lafo garaac iyo timaha oo si xawli ah u daata iyo muuqaalkaaga oo dilma. sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin badan oo laga dhaxlo siigada. arrimahan iyo sidoo kale wararka qoyskaba waxaad kala socon kartaan mareegta mandeq.net.